ma tabar baa haysa ma garanayo war waxaan idin leenahay shabaab waa tagay gabalkaas sidoo u dhacay yaa baa shabaab u dhacay institution argagixisa oo inkaaran oo virus dilaa ah baan rabnaa meesha inaan ka dul qaadno oo wax kale lagu bedelo nidaam dawliga iyo dhaqan suuban lagu bedelo cid kastoo shabaab qalbiga ka nacbata oo ma hadalnayna laakiin waxaan leenahay ku dhiiro saraakiisha iyo gudoomiyaha degmada iyo xildhibaanka dhinacayga taagan iyo dhammaan dadka maxaan ku iraahdaa qaasatan degmada Matabaan waa degmadii uu ka soo bilowday nimankan dagaalkoodu shabaab meeshan ka soo bilowno waa degmo runtii ayadoo hadda degmooyinka Hiiraan aysan kategori gaar ah kala lahayn haddana xasuus ugu leh sababtahay meesha macna waqti muddo ku joogto ee aad howl ka bilowdo ama yaraantaadii aad ku soo kortay aad arday ka soo noqoy macnaha wax ka soo baratay iyo kulli macnaha xasuus gaar ah leeyahay ahmiyad gaar ah inoo leedahay xaqiiqa waana uga mahad celinaynaa deeqda ka maamul ahaan iyo ka shacab ahaanba ay la soo gaarsiiyeen wuxuu inay bataan iyo inay yar yihiin mushkilad ma laakiin waxa macno sameynaya in lagu xasuusto hadiyada hadii qofku qalin kaaga soo dhiibo shanta qaaradood meel kamid ah qalin haduu ku soo dhiibo macna ahmiyadu ku leeyahay taasoo macnaheedu yahay asagoo intaasoo kilomitir ku jira inuu ku xasuusto hadii ay xasuustaas ay sameeyeen degmada Matabaan waa uga mahad celinaynaa mana hilmaami doona hadii Allah runtii waxayna laf dhabar u ahaayeen oo ay nagu dhiiri geliyeen in laga guuleysto shabaab sababtu tahay ayadoo xilli adag lagu jiraayaan meeshaan mid xera ari loogu jiri jiray ari baa xera loogu jiri jiray markii xoogaa yar uu siyar dhinto in yar ku hadho haddana ari kale la keenay xerada loogu soo shubi jiray meel degmada Matabaan ka baxsanna lagama keenin tii koobaad maaha marka maanta deeqda ay soo dhiibeen markii dhowr bilood meesha joognay ciidanka hilibqalkiisa iyo maxaan ku iraadaayay ka warqabkiisa si gaar ah ay degmadaas u sameey jirtay waa uga mahad celinaynaa shacabka meesha ku nool waa uga mahad celinaynaa arintaas degmooyinka kalena waxaan idin leenahay war ku daysada hal lagu daysado oo bal ayaga haduu ka soo fogaaday idinka uu idin dul saaran yahay wali ciidamada dhiiri geliya si la idinka dul qaado yaa hadda degmada Matabaan waa degmada Hiiraan u xigta waqooyi inta hadda meeshan maanta joognana waa la garanayaa oo Yeesooman baan joognaa Sooma waxa waaye degmada Maxaasan geeska u dambeeyay joognaa Sooma oo bolo barday iyo Maxaasi Yeesooman ay ku kala eegayeen dhanka kalena inta kilomitir noo hadhay waa la garanayaa war waxaan idin leenahay soo barbar istaaga dhiiri geliya muraalkooda wax ka bedela ciidamada waxaadna ogaataan oo rabaa dadka Soomaaliyeed ama reer Hiiraan u sheego dagaalka lagu jiro waa revolution wax jiray meesha laga kaxeeyo wax kasto jiyay institution argagixisa oo inkaaran oo virus dilaa ah baan rabnaa meesha inaan ka dul qaadno oo wax kale lagu bedelo nidaam dawliga iyo dhaqan suuban lagu bedelo mar hadii wax ay nooca ay tahay waxaan rabnaa inay noqoto revolution inaan gabar iyo oday iyo wiil iyo arday midna inaan loo kala harino sababta xanuun dilaayo soo socdo
mar haddii xanuun dilaayo kugu soo socdo kula joogo kula nool yahay si kastoo loo suuli karo waa in la suuliyo cilmi baaris kale uma baahna ومسوي علم بارستيس قف كستو سومالي وقف شباب إنه دلوا علم بارستيس تاسوا جير مثل ليه هاي علم بارس هالقصة مايو هلا هذه الدولة دي كرتا ما علم بارستيس شباب اللي دلوا له وعادوا قاعدين مركب من اللي تري قارو كسوي سان مجد وحن الله يا شعب كوي عيدا كحوق دلك الصوماليين أما عيدا ماذا قلب كالسدة دقال كوا كتشيران ويقاتين دور كودي waxaan la hadlayaa waxay shacabka anoo idinka mahad celinaya waqtiga dheer oo dagaalameyseen garanaya waqtiga iyo duruufta lagu jiray iyo abaarta aad ku jirtaan garanaya haddana waxaan rabaa kuwa aqaladooda jooga ee weli ma shabaabkiibay u arkaan inuu soo noolaanayo moogi ma shabaabkiibay aaminsan yihiin inuu wax fiican ka shaqaynayo moogi ما تبر باهي سما قرنيو وروحان ذي لنا شباب واتجي شباب قبل كاس شدو ودعي يا با شباب ودعي أدي الله إذنه وأنا أركي دونتان وحان ذي لنا هذا المركو هرب بالله بويدين والمر لح كسو بيري ويدين وروا قبل هذا كسو بيره وذاك جيد الدجال كمغن هيران جوجا hadda ka horna waan sheegay mar labaadna waan ku celinayaa uma aqoonsan doono inuu odaya uma aqoonsan doono nabadoon inuu yahay uma aqoonsan ixtiraamkeena naga meeli doono 40 sano ninkii gaaray jiida dagaalka yimid ayaan reer hebel uga dhigaynaa aan duq uga dhigaynaa haddii kale jiida dagaalka la soo bixiyo taana inahaasaan uga hari doonaa waxaanan hilmaami doonin mar saddexaadna aan uga mahad celinayna deeqda maanta reer Matabaan ay u soo dhiibeen ciidanka dagaalka ku jira dabcan gudoomiyaha degmadu waa saluugay adeer ma saluugsana way badan tahay waana wax weyn ahmiyad gaarna waa ku fadhisaa degmooyin kalena inay ku daydaan ayaan rajaynaynaa ayagana waa uga mahad celinaynaa degmooyinka doorkooda ha buuxiyeen aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh